لا يمركور إذا كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحعاو فرحدي إن المرة كله أن أوهم بليه وهل كان فرين تبع سنة وقدره مدحوينه نقالي شرفت بدن كيومين مدحوينه شرفت بدن له كيومين نقول آدو فوكسي وأوجا مراد اليوم هميلادي أما أهمية الله أبوري جريتانك شعبك يوم مدى رئاو الستيت مدن قريغان رشيد أو نور حرسي waxaa kale oo aan sidaas oo kale fariin dabacsan u dirayaa wasiirkeena qaaliga ee rugcadaaga ee siyaasiga ee arrimaha gudaha Awdal State Professor Ali Farax Abdullahi waxaa kale oo aan fariin dabacsan oo taas oo kale gaarsiinaya dhammaan howlwadeennada Awdal State oo u horeeya Engineer Muuse Khayrudoon oo ah gudoomiyaha Awdal State ee UK oo ku xigo sida la sheegay Professor Awale oo ah gudoomiyaha Awdal State iyo dhammaan howlwadeennada iyo inta ka soo qayb gashay barnaamijkan ee aanu leenahay mar walba waxay u taagan yihiin inay ka miro dhaliyaan damaca iyo ujeedada fog ee Awdal State ay higsanayso hadal badan oo ma soo joogsan kaliya waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka iraado halkan kuna salaysan halganka iyo ahmiyada loo abuuray jiritaanka ummadda ku qotoma ee reer Awdal State walaalayaal Awdal State sababihii loo abuuray waa arrin taagan سيرة جوجي دونتا أنت إنه فيلنا حدانا لو هيلين ضد كذي أو تعليم تهدي له أو ضد نمط هذي له أو قراشة هذي له حدانا لهيلين وحينو أجنه هاي إنه مرة ولا بقى إنه كهذا دباتوين طبيعية ولا واحد شرو دباتوين عدمك وقعميس يكون جيستو يكون طبيعية وحنا أمسنا هاي سيدا يمكن لقد واجي ما دوني أنا كهر دعاء أنا بدأ هذا احترام يو كهل الدونان إن دباتوين يبقى حدك سياسيات يقوقب وكتيرو دولنا reer Awdal State من إلا بط إلا يقول كبرجع وحكلوا ترى ولا ليال وعن فرنت هذا هالكان كجارسين يا دولنا هالصوماليات قيمها بدن يقدرون يو تفيد العالم جا Awdal State وحلو أبو ري وربيتانكا يجريتانكا آيها ومدة كردغان Awdal State Awdal State waxaa loo yagleelay oo isu geeyay maskaxdooda iyo muruqooda iyo dadnimadooda iyo kartidooda dhalinyarta reer Awdal State haweenkooda iyo odayaashooda iyo aqoon-yahankooda dadkii abuuray ee himilada Awdal State abuuray waa dadka weli u taagan ee u heelan inay ka miro dhaliyaan waxa ayatiinkooda iyo awlaadooda iyo haweenkooda iyo ummadooda qiimaha badan leh ee qoomiyad leh ee beela leh ee dhan walba leh inay ka miro dhaliyaan walaalayaal Awdal State waxay doonaysaa gabar waliba iyo wiil waliba oo Soomaaliyeed waxa uu doonayo uu ku hanweeyahay ayay bulshada Awdal State doonaysaa bulshada Awdal State walaalayaal waxay doonaysaa Soomaalinimo ay doonaysaa dhiig bay doonaysaa dhalashay doonaysaa isku dheeh bay doonaysaa isu ekaanshay doonaysaa isku dhaar bay doonaysaa Awdal State ومدة رأي أول ستيت ومدة حضارة كوعانا ومدة تعليم كوعانا. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا هلكن كسلام يا مرتي الشرف تقالقة مدحض يدا نوتي من محنكو هذا قالقة أيان هلكن كسلام يا مدحوينها بحجان كوينا جمقان رئيس البرلمان رجع عقاش هلكن تمدي هوانك iyo caruurtaba waan idin salaamay walaal salaam calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wax badan halkan kuma soo talagalay aad baad u mahadsantihiin waxaan idin sheegayaa anigu in yar oo kooban baan halkan leeyahay waxa weeyaan dawladeennan waa dawlad qaaliya waa dawlad aan juhdi badan ku soo gelinay waa dawlad inooga baahan inaan wali caawino oo aan taageerno isdaba taagno waa dawlad u baahan inay dhulkeeni ka shaqeyso dhulkeeni wax badan baa leynooga baahan yahay waxa umadu had iyo jeer waxay tiraahdaa filaxantii ma mooga waxa layna yiraahdaa dawladda ma qurbaha un baad ku haysaan meedaan dhulkii keenin insha Allah iyadoo udbaheegii dhigaheegii wadatay iman doontaa baan aanu yiraahdaa had iyo jeer marka insha Allah suun weeyaan taasina waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa dhulka la wada taabtay ee gobolaysiga bariyahan dambe dhulboobka inagu soo cusboonaaday waxa weeyaan waxa la yiri coliya dhaanba halkaad ka filayso ka yimaada waxaan caawa halkan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Awdal State oo inoogu yimid booqasho inana dhaafaya inaguna soo noqonaya haddana mar labaad haddii Ilaahay idhaaho waxaan Ilaahay uga baryayaa
inuu ilaahay u dhib yareeyo safarada u galayo iyo waxyaabaha ka horeeya oo uu ilaahay u dhib yareeyo sidii loo xalin lahaa ee dadka Awdal State loo wacyi gelin lahaa waynu ognahay dhibaatada maanta dalkeena ka taagan waynu ognahay in xuduudaheennii soo jiraaga ahaa ee la sameeyay 1935 maanta lagu doodayo oo la leeyahay waxay ka mid ahaan jireen Hargeysa waddanka Somaliland la oran jiray wuxuu u qaybsanaa 6 district ayuu ahaan jiray oo ay tahay magaalo madaxdiisu Hargeysa 6 district uu ka koobnaa waxay ahayd Boorama district Hargeysa district iyo Berbera district Laascaanood Sanaag iyo Burco Boorama district waxay gali jirtay badda ilaa Ceel Sheekh ayay ku siman tahay xuduudeedu waa xuduud jirta oo 1935 kii la sameeyay ma aha wax maanta la abuuray ma aha waxay ku marmarsoodaan nidaamka ka jira Hargeysa in la sameeyay waqtigii Siyaad Barre hortii baa la sameeyay dawladii ka horeysay aadan caddo hortii baa la sameeyay horteed baa la sameeyay isku darkii horteed baa la sameeyay dagaalkii labaad ee dunida horteed baa la sameeyay xuduudaha ma aha wax imika la sameeyay ma dagaanka Gadabuursigu wuxuu ku beegan yahay ilaa Agabar ilaa Geedeeble ayay beera ku leeyihiin beero ka diiwaan gashan manshiibiyada Boorama ma aha wax bilaasha oo la iska sheeganayo ma aha waxan jiraa waa wax soo jiraayo weeyaan wax lagu doodi karo oo boob lagu day karo iyo dhac ma aha waa wax weligeed soo jirta wax imika la sameeyay ma aha wixii iskuul la soo galay juqraafiga ku soo dhigteen waqtigii protectorate-ka la oran jiray Somaliland wax imika la keenay ma aha waxaad moodaa in marka gobolkeenan aan ka deganahay Soomaaliya loo soo noqdo waa gobolada waqooyi sida loo yaqaano ee la baxay Somaliland ee SNM ka taliso waxaad moodaa inay bilaabeen markii ay ku fashileen wax walo oo siyaasada ee hore u socon waayeen inay bilaabeen inay wax boobaan waad ogtihiin bariga waxay ka sameeyeen aan ku noqdee districtyaasha ugu waaweyn xagga area-da waa Laascaanood iyo Ceergaab ay ahaan jireen Somaliland ilaa Caynabay soo gaari jirtay Laascaanood Booramana ilaa Agabar bay gaari jirtay maanta waxaad arkaysaa in lagu sheegtay Wajaale oo adigu lahayd oo dhulkaagii ay ahayd oo garoonka oran jirnay inagu ninkii soo gaaray ma garanayo Cumar baan u malaynaa go marka kala bayd inaga lahayn waa la qaatay xuduudka Boorama halkaas ay mari jirtay Wajaale kala baydka halkaas ay Gabiley ka bixi jirtay halkaas ay Ceel Sheekh ka dhici jirtay maanta maxaan ka haynaa waxbalaan waa la boobay dhulka waxaad moodaa in la sheeganayo haddana oo dib laynoo sheeganayo laynagu soo ururinayo meel yar oo buura ah buuraleeya oo dhulalkii qodaalka ahaa oo dhan laynaga qaadanay xagga Jabuuti waa laynaga soo galay xaggan waa laynaga soo galay war maxaa inoo hadhay marka waxbalaan waxa laynaga rabaa inaynu dadaal gallo